بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن صاحب بيال هالكني وارون شيك تي في وبرتاني يوتيوب ككلنا صاحب بيال قد بدأ وجوا وين أن وركين كجاهنا وحى كميدا وجميع بنتلان وسعد عبد الله الدني وكوفر شلمي ويردوني إنه كقاعدة إذا مدى PSF يغلغل سو وجاي معمول كيسة مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو ومانتا أو بحي سفر دبادد وأن هوري لوسي شاعن نيسا أو مقدسة qabatay saraakiil ka tirsan al-shabaab qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibada inagu xiran oo idiin soo gudbin doonaa hadduu rabbi raali ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tahay waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadho like na inagu dhiirigelisaan insha Allah saaxiibayaal sidoo dhac warkayga baad ku daawateen Saad Abdullaahi Dani ayaa ku fashilmay weerar uu doonayay inuu ku qaado PSF qalqal ayaana soo wajahay maamulkiisa waxaa cirka isku sii shareertay xiisada xoogan ee ka dhalatay xilka qaadisi lagu sameeyay agaasimiyaha la dagaalanka argagixisada PSF Maxamuud Cabdullaahi Cismaan Diyaana saddexdii maalmood ee ugu dambeysay waxa magaalada Boosaaso isku horfadhiyay ciidamo kala taabacsan agaasimaha xilka qaadista diiday madaxweyne Dani waxaase la sheegayaa in iminka ay xaaladu qaraar tahay kadib markii lagu guuldareysay waan halkaasi laga waday ciidamo ka tirsan daraawiishta oo uu watay madaxweyne Dani si ay ula dagaalamaan ciidamada PSF ayaa isku dhiibay ciidamada PSF ay loo qorsheeyay in ay dirirta ku qaadaan taasoo dabar jab weyn ku noqotay madaxweyne Dani ciidamada PSF oo iminka si buuxda gacanta uga haya Boosaaso ayaa doonayay inay magaalada ka saaraan xogaga yar ee taabacsan madaxweyne Dani sidoo kale saraakiil ka tirsan dawladda Mareykanka oo in muddo ah qalabeynayay hay'adda la dagaalanka argagixisada PSF ayaa soo gaaray magaalada Boosaaso si ay qayb uga noqdaan ama qayb ay uga qaataan dadaalada lagu doonayay in xiisada lagu qaboojiyo taliyaha saldhigga magaalada Boosaaso iyo duqa magaaladaasi Cabdiqani Axmed Ismaaciil oo warfidiyaanka shir jaraa'id u qabtay ayaa ka diiriyay xaaladda amni ee magaalada iyagoo xusay in inta badan xafadaha Boosaaso laga barakacay qodobada kale saaxiibayaalidina haynana waxa kamid madaxweyne Farmaajo ayaa maanta u baxay safar dibadda oo aan hore loo sii ogeyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safar dibadda oo aan hore loo sii shaacin maanta ugu baxay magaalada Dooxa dalka Qatar madaxweyne Farmaajo ayaa waxa safarka ku weelinaya marwada koowaad Zainab Cabdi Macalin wasiir ka tirsan xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ay kamid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Cabdi Saciid Muuse Cali wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Xamse Saciid Xamse iyo gudoonka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab sida ay sheegtay madaxtooyada safarkan waxa uu qaadan doonaa 2 maalmood qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu yiri madaxweynaha oo martiqaad ka helay amiirka dawladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani ayaa kala hadli doona xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dawladda Soomaaliya iyo Qatar isaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha horumarinta ciyaaraha iyo iskaashiga maalgashiga boqoshada madaxweynaha waxa qayb ka ah furitaanka koobka kubadda cagta ee Carabta oo lagu marti qaaday madaxda dalalka Carabta si loo xoojiyo iskaashiga dhanka horumarinta ciyaaraha iyo isdhexgalka dhalinyarada shucuubta dalalka Carabeed iyadoo madaxweynuhu uu kulanka dooceed la qaadan doono hogaamiyaasha ka soo qaybgalaya munaasabada ayuu yiri agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo ka warbixinayay safarka madaxweyne Farmaajo ee Qatar ayaa imaanaya xilli dalka uu galay doorasho iyadoo la filayo in dhawaan la soo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose Qatar waa dalka ugu weyn ee taageerada mugtala siiya madaxweyne Farmaajo mana cadda hadii booqashada ay sidoo kale qayb ka tahay arrimo siyaasadeed marka laga reebo ujeedka ay shaacisay Villa Soomaaliya taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay howlgal qorsheysan oo xalay ciidamada ammaanka dawladda ay ka sameeyeen qaybo kamid ah magaalada Muqdisho howlgalka oo ahaa mid ballaaran ayaa waxa fuliyay ciidamada duufaan ee hay'adda nabad sugidda waxaana ay ka sameeyeen xaafadaha suuqa xoolaha degmada Hilwa qoraal ka soo baxay taliska nabad sugidda ayaa waxa lagu sheegay in howlgalkan lagu soo qabtay 3 sarkaal oo ka tirsan kooxda al-shabaab kuna sugnaa gudaha xaafadaasi kuwaas oo hay'addu sheegtay in lagu raad joogay maalmihii la soo dhaafay sidoo kale waxay hay'adda nabad sugiddu shaacisay in ciidamadu ay soo qabteen kayd hub ah oo
al-shabaab ku lahaayeen kaasoo ay ka koobnaa noocyada kala duwan ee hubka iyo walxaha ay u adeegsadaan in ay ku sameeyaan qaraxyada sida lagu sheegay qoraalka. nisa ayaa dhinaca kale u mahad celisay dadka shacabka ee xogta la soo wadaagay isla markaana la shaqeeyay ama kala shaqeeyay howlgalkaasi. waxaa mar walba mudan oo ciidamada nisa ay ugu mahad celinayaan bulshada Soomaaliyeed oo haatan aad ula shaqeeya laamaha sirdoonka qaranka ayaa tiri nisa. hubka laga soo bandhigay ama hubka la soo bandhigay oo tiro badan ayaa hadda mid duugoobay waxa ayna u muuqdaan kuwa muddo sanado ah ku kaydsanaa halkaasi. muddooyinkii la soo dhaafay ayaa waxa ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa nabad sugidda iyo booliisku ay xoojiyeen howlgallada ka socda magaalada Muqdisho ee lagu sugayo amniga si looga hortago falalka amni darrada ee ka dhaca magaalada Muqdisho. qodobada kale ee saaxiibayaalidiin haynana waxaa kamid ah taliyaha BSF ayaa si amar culus ciidamada ku sugan magaalada Boosaaso. taliyaha ciidamada BSF Maxamuud Cismaan Diyaana ee xilka qaadista uu ku sameeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo saaka khudbad u jeediyay cutubyo ka tirsan ciidanka ayaa kala hadlay khilaafka u dhaxeeya ciidamada BSF iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. taliye Maxamuud ayaa ciidamada ku amray in aysan wax xabad ah ku ridin magaalada Boosaaso isla markaana ilaaliyaan degnaanshiyaha magaalada Boosaaso. Maxamuud oo ka hadlayay khilaafka ka dhaxeeya madaxweynaha Dani ayaa sheegay in uu iska soo dhamaan doono waxaana sheegay inaysan jirin wax xiisad dagaal oo ka aloosan magaalada Boosaaso. sidoo kale saraakiishu waxay sheegeen agaasimuhu ku amray inay ka baxaan difaacyada qodan isla markaana si caadi ah u wataan shaqadooda ciidanimo. sidaan xogta ku helnay agaasimuhu kama hadlin wax ku saabsan xilka qaadista lagu sameeyay iyo haddii uu xilka wareejinayo midna. ciidamada BSF ayaa la soo sheegay in ay ka baxeen dhufaysidii u qodnaa isla markaana hadda si caadi ah ay u wataan howlahooda. xaaladda magaalada Boosaaso ayaa degan inkastoo ay magaalada la ciirciirayso ciidamo fara badan oo kala taabacsan agaasimaha BSF iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. khilaafka u dhaxeeya Saciid Dani iyo agaasimaha hay'adda BSF ayaa bilowday kadib markii uu Dani soo saaray wareegto uu xilka kaga qaaday agaasimaha Maxamuud. Saciid Dani ayaa doonayay inuu si buuxda ula wareego ammaanka magaalada Boosaaso halkaas oo la filayo inay ka dhacdo doorashada 16 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka. waxaa saaxiibayaal intaas ayaa ku soo gabagabeynayna warkii aad ka daawanaysaa Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusubtahay waxaan si naxariis la kaaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto like na inagu dhiirigelisaan insha Allah.